labadan fraction isku dhufo equal ayaan dhahaynaa. Radical 2 haddii radical 3 lagu dhufto waxaa ka soo baxayso radical 6. maxaa yeelay labada radical mid ka soo qaado labada radical d isku dhufo 6 waaye. labadan denominator isku dhufo 2dan haddii 2 lagu dhufto 4 ayaa ka soo baxayso. minuska soo qaado. labada numerator iyo labada denominatorna isku dhufo radical 2 haddii 1 lagu dhufto waa radical 2. labadan 2 haddii la isku dhuftana waxaa ka soo baxayso 4 ayaa ka soo baxayso. Then waxaan dhahaynaa equal labadan hooseeye denominator waa isku mid ka soo qaado. kan hore waxaad haysataa radical 6 minus kan dambana waxaad haysataa radical 2 ayaad haysataa. goobo marka waxaa la gelin doonaa meesha ay ku qoran tahay radical 6 minus radical 2 over 4. Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kusoo dhawaada exam paperski 2021ka. haatan waxaan ku hormari doonaa warqadda xisaabta ayaan ku hormari doonaa. haatan waxaan ku hormaraynaa qaybta ugu horeyso ee xisaabta. haddaba maadada xisaabta waxay ka kooban tahay waa laba section ama laba qayb waaye ama laba part. Partiga koowaad waa circle the correct letter for the following choices. qaybta labaadna part 2 waa structured questions waaye. qaybtan hore waxaa lagu bixinayaa 40 marks goobageliska. qaybta dambe oo ayadana ah part 2 structured questionska oo u wada badanba calculation ayadana waxaa lagu bixin doonaa 60 marks. 60 plus 40 100 marks ayaad halkaasi ku heli doontaa. warqadahani waxay ka anfici doonaan imtixaanka haatan kugu soo foodale waa haddii aad tahay arday form 4 ah. in badan ayay ka anfacaysaa because ardaydii hore waxa imtixaanka looga qaaday haddii aad xog ama warbixin aad ka hayso waad u diyaar garoobi kartaa imtixaanka kugu soo foodale ama ku soo socda. qaabku ku imaanayo waad yara garan kartaa meelaha aad iska aqrin lahayd waa review areaska waad ka soo dhex saaran kartaa su'aalo la mid ah ama u yara dhow ayaa la soo qaadan karaa. marka mar walba adiga inaad fiiro gaar ah aad u yeelato imtixaanaadkii ugu dambeeyay ee ay qaaday wasaaradda in aad soo wada aqriso. anaga hadda 2021 ka shaqeynayna kuwa kale ka sii horeeyaa jira waad soo fiirin kartaa. marka qaybtan ugu horeyso haddii aan kormarno su'aasha ugu horeyso ee goobageliska waxa ay tahay find the exact value of sin 15 degree. sin oo 15 degree ah maxay la eg tahay sheeg. waxaa lagu qoray a b c d. jawaabta saxda inaad goobageliso ayaa la rabaa. si aad jawaabta saxda aad u ogaato adoonan soo shaqaynin goobo iskama gelin kartid. marka hore waa inaad warqadaada soo qaadataa qalinkaaga iyo calculatorkaaga aad shaqaysaa. kadib wixii ku soo baxa haddii afarta jawaabooda meesha lagugu qoray mid ka mid ah ay waafaqdo midaas ayaad goobo soo gelin doontaa. anaga marka hore waa inaan soo shaqaynaa kadibna jawaabta saxda si aan u ogaano. angaliska marka laga hadlayo chapter 1ka haddaan wax yar dib ku yara xasuusiyo xaglaha aan soo dhignay waa analytic trigonometry-ga waxay ahaayeen xaglo lagu magacaabo special angles ayaan ku soo dhiganay. xaglaha special angleska dhammaantoodba waxaa laga wada heli karay in quadrant 1 waxda koowaad ayaa laga heli karay. xaglaha special anglesku waxay ahaayeen waa saddexdan angle kaliya 30 degree 45 degree and 60 degree ayay ahaayeen. saddexdaas xaglood ayaa lagu shaqayn jiray. waxaadna soo dhigatay sidoo kale lagu soo baray cos laba angle oo la isku darayo ama la kala jarayo waxa lagu helo sin laba angle oo aan isku mid ahayn oo la isku darayo ama la kala jarayo tan laba angle oo aan isku mid ahayn oo la isku darayo ama la kala jarayo. inta adiga mar walba waa inaad xasuusnaataa. haddii aan wax yar hadda dib u xasuusano coska oo kale marka laga hadlayo cos laba angle aan isku mid ahayn marka la isku darayo ama la kala jarayo sidee loo furfuri jiray. furfuriddu waxay ahayd cos sin hore in lagu qoro laba cos gadaalna in lagu qoro laba sin ayay ahayd. cos qaybta dambe waxaa lagu qori jiray sin
sin ayaa lagu qori jiray labada cos oo hore waxa la raacin jiray labada angle isku darsan ama la kala jarayo maadaama hadda a iyo b ay yihiin labada cos a iyo b la kala raacin lahaa labada sin waxa la kala raacin lahaa a iyo b ayaa la kala raacin lahaa haddii labada angle ay u dhaxaysay plus halkan calaamada pluska opposite-keeda keen haddii ay plus u dhaxaysay meeshaas waa inaad minus keentaa haddii labada angle ay minus u dhaxaysana minuska opposite-keeda keen oo labada qaybood ee labada product waxaad u dhaxaysin lahayd plus ayaa u dhaxaysin lahayd taasi waa baabka kale ee aad soo baratay wuxuu ahaa sin laba angle oo aanan isku mid ahayn oo la isku darayo ama la kala jarayo ayadana haddaan ku xasuusiyo sida loo furfuri jiray waxa ay ahayd waxa israacin jirtay sin iyo cos qaybta hore qaybta dambana cos iyo sin sida ay ahayd hore waxa lagu soo dhigan jiray sin iyo cos qaybta dambana waxa lagu dhigi jiray labadan oo la kala hormariyay ayaa gadaal lagu dhigi jiray waxa la soo hormarin jiray coska gadaalna waxa la geyn jiray sinka angalada waxa u kala raacinaysaa siday ugu kala qoran yihiin maadaama hadda angle kore a u yahay kan dambana b u yahay kan a raacsi kanna b raacsi kan a raacsi kan dambana b raacsi sinka marka la joogo waxaan hore kugu soo sheegnay calaamadu isma bedelayso haddii labada angle ee plus u dhaxaysay halkan waxay noqonaysaa plus haddii labada angle ee minus u dhaxaysay halkan waxay noqonaysaa isla minuskii calaamad isbedelayso ma jirayso ayaa la soo sheegay waxaan rabaa haddana inaan ku xasuusiyo tan laba angle oo aan isku mid ahayn oo la isku darayo ama la kala jarayo waxa soo baxayo qaacidada ayadan waxay ahayd tan laba angle aan isku mid ahayn sida hadda angle kore hadii a loo qaato kan dambana hadii b loo qaato plus iyo minus uu dhaxeeyo barna isku dar barna kala jar lagu dhaho waxa loo furfuri jiray oo ay ahayd jawaabtu in la dhaho equal in la soo qaato tanka laba mar soo qor labada angle kala raacsi tanka marka hore iyo marka dambaba tan mar waxa raacisaa angle-ka hore marna waxa raacisaa angle-ka dambe hadii labada angle ay plus u dhaxaysay labada tan waxa u dhaxaysiisaa plus u dhaxaysay qaybta hoose maxaa lagu dhigi jiray marka qaybta hoose waxay ahayd waa inaad soo qaadato hal sharci ah calaamada labada tan u dhaxaysay opposite-keeda waa inaad soo qaadataa labada tan hadda waxa u dhaxayso calaamada pluska calaamada pluska opposite-keeda waxay noqonaysaa minus inaad soo qaadato haddana isla labadii kore oo la isku dhiftay inaad sii raaciso waxa waaye tan a iyo tan b labadoodii inaad raaciso oo aad saas u qorto haddii halkan plus ay tahay inta plus ay noqonaysaa saan kuu soo sheegay qaybtan hoosena waxay noqonaysaa mar walba calaamadan kor haddii ay plus noqoto hoos waa inaa minus ka dhigtaa hadday inta minus tahay inta waxay noqonaysaa minus hadday inta minus tahayna inta waxaa ka dhigaysaa plus ayay ahayd qaybtaas yaroo hore waxaan rabaa inaan kugu xasuusiyo angalada sinka iyo coska iyo tanka marka angaladu aysan isku mid ahayn oo plus u dhaxeeyo ama minus u dhaxeeyo qaabkii loo furfuri lahaa special angles marka laga hadlayo xaglaha qaaska ah xaglaha qaaska marka laga hadlayo waa saddexda hadda aan sheegnay 30 degree 45 degree and 60 degree marka laga shaqeynayna waxay ahayd angle-ka aad haysato ee lagu siiyay haddii uu ka bato 60 degree haddii uu ka bato waxaad dhahaysaa raadi laba angle oo marka la isku daro ku siinayo angle-kaasi angle-ka lagu siiyay haddii uu ka yaraado 30 degree waa xaglaha special angleska xagasha ugu yar oo 30 degree hadda aan soo qaadanay saddexda dhexaan sheegnay waa oo special angleska 30 degree angle-kaaga haddii uu ka yaraado waxaad dhahaysaa raadi laba angle oo ka mid ah special angleska kuwaasoo marka la kala jaro ku siinayo angle-kaasi anaga hadda angle-ka aan haysano haddaad fiirisaan angle-keena waa 15 degree 15 degree 30 degree way ka yar tahay maadaama 30 degree ay ka yar tahay waxaan dhahaynaa laba angle oo ka mid ah special angleska kuwaasoo marka la kala jaro na siinayo 15 degree maxaa waaye angalada special angleska waxaan ku sheegnay 30 degree 45 degree and 60 degree ayaan ku sheegnay laba ka mid ah marka la kala jaro oo 15 na siinayso ayaan raadinaynaa haddii hadda labada aan soo qaadano labada hore aan anfici karto 45 haddii 30 laga jaro 15 degree ayay ina siinaysaa ayadaaba na anfacayso laakiin labada haddii la kala jaro mana siinayso 60 haddii 45 laga jaro 25 aa noo soo baxayso way ka badan tahay marka waxaa ina siin kara 30 degree iyo 45 degree labadooda ayaan isla qaadanaynaa si aan u furfurno waxaan dhahaynaa su-aasha marka haddaan soo qorno su-aashu waxay ahayd
sin 15 degree equal sin noo soo qaad booskii 15ka waxaa lagu bedelnaa labadan angle ku bedela adoo midka weyn soo hormarinaya waxaad dhahaysaa 45 degree minus 30 degree ayaa dhihi doontaa kadibna waxaa soo qaadanaysaa equal tan hadda sharciyadii aan hadda halkan ku soo qornay waxay waafaqaysaa sin laba angle oo aan isku mid ahayn oo la kala jarayo ayay waafaqay waa sin laba angle oo aan isku mid ahayn oo la kala jarayo marka hadda aan furfureynay waxay ahayd sharciga waxaan u furfureynay inaan dhahno sinka angle-ka hore coska angle-ka dambe calaamadda haddii ay minus tahay minuska sideeda u soo qaado maxaa yeelay sinka marka la joogo calaamad isma bedelayso sida aan soo sheegnay haddana cos sinkan iyo coskan kala hormari coska horay keen sinka gadaal geey angalada kala raacsiyi coska waxaa raacisaa angalka hore oo 45 degree sinkan waxaa raacisaa angalka dambe oo 30 degree raacsiyi waxaa la rabaa keliya labada sin ee labada dhinac ku kala qoran angalada ay wataan waa in mid angal kalena waa inuu angalka weyn noqdaa labada cosna angalada ay kala wataan waa inay kala duwanaadaan kan hadduu 30 yahay kan waa inuu 45 noqdaa saasaa rabaa kadibna ma qaybahan waxaa ka fiirinaysaa tablekii lagu soo dhigay ee special angleska ay kugu qornaayeen ama calculatorkaaga ama adba korka xasuuso oo iska xifdi radical 2/2 waay cos oo 30 degree waxay la eg tahay radical 3/2 minuska noo soo qaad cos oo 45 degree waxay la eg tahay radical 2/2 times sin oo 30 degree waxay la eg tahay halfka noo soo qaad labadan fraction isku dhufo labadan fraction isku dhufo equal ayaan dhahaynaa radical 2 haddii radical 3 lagu dhufto waxaa ka soo baxayso radical 6 maxaa yeelay labada radical mid ka soo qaado labada radical d isku dhufo 6 waayo labadan denominator isku dhufo 2dan haddii 2 lagu dhufto 4 ayaa ka soo baxayso minuska soo qaado labada numerator iyo labada denominatorna isku dhufo radical 2 haddii 1 lagu dhufto waa radical 2 labadan 2 haddii la isku dhuftana waxaa ka soo baxayso 4 ayaa ka soo baxayso then waxaan dhahaynaa equal labadan hooseeye denominator waa isku mid ka soo qaado kan hore waxaad haysataa radical 6 minus kan dambana waxaad haysataa radical 2 ayaad haysataa goobo marka waxaa la gelin doonaa meesha ay ku qoran tahay radical 6 minus radical 2/4 ayaa goobo la gelin doonaa waxaana sax inoo noqonayso d ayaa sax noqonayso maxaa yeelay answerkan waxaa waafaqayso d ayaa waafaqayso if cos 2 theta is equal to 450 the value of sin theta in quadrant 2 equals haddii cos oo double angle ah ay la eg tahay 450 ay la eg tahay value-ga ama qiimaha sin theta in quadrant 2 waxda labaad marka la joogo maxay la eg tahay waxaa lagu sheegay cos waxaana laga rabaa sin inaad sheegto coska aad haysato waa double angle waxaa laga rabaa marka inaad sinka meesha ka soo saarato waxaan isticmaalaynaa qaybtan su-aasha noocan oo kale marka ay noqoto double angle formulaska ayaan isticmaalaynaa adiga cos oo double angle haddii lagu siiyo sin lagu diray waxaad raadinaysaa qaacidooyinka double angleska meesha ay ku qoran yihiin sinka marka laga tago coska marka laga hadlaayo waxaa lagu heli jiray saddex formula saddexda formula ee lagu heli jiray waxaad ka soo qaadanaysaa formulada waxay kulminaysay coska iyo sinka ayay kulminaysay waxayna u qorneed qaab noocan oo kale ah cos 2 theta waxaa lagu heli jiray 1 minus 2 sin squared theta ayaa lagu heli jiray qacdadan ayaa waxaa ka soo saaranaysaa sinka si hadhow cos oo double angle ah aa ugu bedelato sinkan inta minus uu ku wataa haddii aad soo wareejiso wuxuu ku soo wareegaa plus uu ku soo wareegaa oo wuxuu noqon lahaa 2 sin squared theta ayuu ku soo wareegi lahaa equal meeshan waxaa loogu yimid 1 coskan inta plus uu ku wataa haddii la wareejiyo wuxuu ku wareegi lahaa minus wuxuu noqon lahaa cos oo 2 theta ayuu noqon lahaa adiga sin kaliya ayaad rabtaa inaad soo saarto sinkaaga hadda horgala ayuu wataa coefficientigiisu waa 2 2daasi waxaad u qaybisaa both sides ba u soo qaybi labadan way isku baxayaan inta waxaa ku soo harayso sin squared theta equal 1 minus cos 2 theta all divided by 2 ayaad haysataa sin squared marabtid ee waxaa rabtaa inaad soo hesho kaliya sin kaliya sinkaaga hadda square wataa square-ka waxaa lagu baabi'in karaa square root marka square root geli both sides labada dhinacba qaybtan waxaa la gelinayaa square root qaybtan waxaa la gelin doonaa square root waa la gelin doonaa square-kan square root-kana isku baxaya inta waxaa ku soo harayso sin theta equal
qaybtan kale radical ku jirto plus or minus ka hormari radical ka soo qaado 1 minus cos 2 theta all divided by 2 aad u soo qaado. Then hadda formulada waa soo heshay waad ku bedelan kartaa cos oo double angle ah ku bedelo kadibna aad u soo saaro. Sin noo soo qaad 2 theta equal plus or minus kan labadoodaba ha ku wada shaqeynin waxa ku anfacaysa mid waxa ku shaqeynaysa kaliya mid ku anfacayso. Quadrantiga la joogo waa quadrantiga la joogo waa quadrant 2. Quadrant 2 hadii la joogo maxay ahayd marka quadrantiyada si loo xasuusto the four quadrantiska marka aan ka hadlayno 1 2 3 and 4 the four quadrantiska waxa lagu xasuusan jiray all students take calculus ta qaacidada ayaa lagu xasuusan jiray taasoo ah all dhamaantood hadii la fiiriyo functionska waa trigonometric functionska in quadrant 1 waxay ku wada noqonayaan balance in quadrant 2 marka la joogo sin only ayaa positive noqonayo others waxa waaye calaamadooda negative ay noqonaysaa. Quadrant 3 marka laga hadlayo tan only is positive others negative waaye. Quadrant 4 marka laga hadlayo cos only is positive others are negative waaye. qaacidada marka saa ay ahayd labada kale. anaga hadda maadaama aan in quadrant 2 waaxda labaad la joogo waaxda labaad sin-ka muxuu ku noqonaa in quadrant 2 sin only positive waaye. others ayaa waxay noqon lahaayeen negative noqon lahaa marka waxaan qaadanaynaa positive plusna hadda wax macna ah ma sameeynayo ka tag radicalka noo soo qaad waxaan dhahaynaa 1 minus cos oo double angle ah waana la siiyay waxay la eg tahay waa 450 over hoosna waxaa ku haysataa 2 ayaa ku haysataa waxaan dhahaynaa sin theta equal ayaan soo qaadanaynaa qaybtan kala tuur hooseyahan tooda sideeda u soo qaad 5 times 1 waa 5 minus 4 1 over hoosna waxaa ku haysataa 5 ayaa ku haysataa sin theta equal ayaan soo qaadanaynaa radicalka marka la noo soo qaad waxaa isku dhacaya 1 kan oo numeratorka sidiis u soo qaado 2 dan iyo 5 kan isku dhufo 10 1 over 10 haddaan sii wadno waxaan dhahaynaa sin theta equal inoo soo qaad 1ka iyo 10ka waxaa perfect square ah oo radicalka ka bixi kara 1ka laakiin 10 perfect square ma aha 1 hadii root-ka laga saaro wuxuu aga baxaa 1 ayuu aga baxaa laakiin 10 ma ka bixi karo oo wuxuu noqon lahaa radical 10 ayuu noqon lahaa ma ka bixi karo. waa mamnuuc fractionka marka laga hadlayo kusuurka in denominatorka uu noqdo mamnuuc waay si loo baabi'iyo waxaa lagu sameynayaa conjugation isla asaga ayaa numeratorka iyo denominatorka ama maqaamka iyo basdhigaba lagu dhufanaa. maqaamka waxaan ku dhufanaynaa radical 10 basdhigana waxaa lagu dhufan doonaa radical 10 kale ayaa lagu dhufanaa. equal ayaa dhahaynaa 1 hadii radical 10 lagu dhufto radical 10 ayaa soo baxayso laba radical oo isku mid ah hadii la isku dhufto labada radical isla tuur labada radical dhina hal radical ka soo qaado labada xididshe oo isku mid ka ah hal xaba ayaa laga soo qaadanaa. answerka marka waxaa goobal gelin doonaa meesha ay ku qoran tahay radical 10 over 10 waa su'aasheenii saddexaad ayadana waxay u dhacaysaa qaab noocan oo kala ah the imaginary and real parties qaybta maangalka ah iyo qaybta maangadka ah of the complex number ee tirada ka kan oo ah 3 plus 9i are respectively say u kala horeeyaan hadii loo kala qoro maxay noqonaysaa sheeg waxa laga hadlaa waa chapter 2 nambaraduna waxay yihiin waa complex number numberka complex numberka wuxuu ka koobnaa laba party wuxuu ahaa real party kalena wuxuu ahaa imaginary party ahaa qaybta imaginary partiga ah waxa lagu gartaa waxa la socota i no macnaheedu waxay ahayd iota saa hore u soo sheegnay qaybta real numberka ah waa number caadi ah oo meesha ku qoran waay su'aasha adiga real iyo imaginary-ga 3 iyo 9 way isku dhihin oo waxaad dhahaysaa qaabka su'aasha lagu weydiiyay fiiri su'aasha waxa laga rabaa inaad soo hormariso qaybta imaginary-ga inaad soo hormariso oo ay hore jirto hadda qaybtan anaga hadda fiirino qaybta ay ayada la socoto waa ayaa qaybta imaginary-ga inoo noqonaysa qaybtan ayaa anaga imaginary inoo ah qaybtan aysan waxba la socon oo whole numberka ah qaybtan ayaa waxay inoo noqonaysaa ayadana real inoo noqonaysaa waa su'aasha marka waxa laga rabaa inaad u qorto qaabka adiga lagu weydiiyay ay qaabka adiga arabto ha u qorin waxa lagu dhahayaa imaginary-ga soo hormari real-ka gadaal geey imaginary-ga hadaan fiirin anaga imaginary-geena waxa waa 9 waay 9ka ayaa soo hormarayo haddana waxa lagu dhahay real-ka ayaa gadaal jiro real-kana anaga hadda waxa waa real-keena 3 waay
9.3 yaa sax noqonayso waxa goobe la gelinaa marka su'aasha B macna answeriska waxa la gelinaa B ayaa goobe la gelinaa oo 9.3 ah wa su'aasha halkaas aga baxnay su'aasha kale ku xigta question 4 waxa lagu dhahay waxa laga hadlaa wali complex numberska in chapter 2 solve 3 plus 2i multiplied by 4 minus 2i waa two complex numbers waa complex number another complex number lagu dhufanayo waa labadooda marka la isku dhufanayo maxaa la isticmaali jiray waxay ahayd sharcigu wuxuu ahaa kaliya in la isticmaalo special productiga caadiga ah bas kaliya waxa soo qaadanaysaa the first term waxa ku dhufanaysaa bracketka dambe waxa ku jiro marba mid ku dhufa marna the first term oo qaybta realka ah marna qaybta dambe oo imaginary mar realka ku dhufanaysaa marna imaginary 3da waxa soo qaadan su'aasha marka la dib u soo dhigno 3 plus 2i ayaa lagu dhufanaa 4 minus 2i lagu dhufanaa marka isku dhufanayno 3dan soo qaado 4 ku dhufo 12y plus kan minus ku dhufo minus y 3dan soo qaado 2 ku dhufo 6y kan bisa i wata i sida u soo qaad plus kan plus ku dhufo waxa waaye plus y 2dan 4 ku dhufanaysaa waa 8 i-dan kan i kala mooto i-dan sida u soo qaad plus kan minus ku dhufo minus y 2dan haddana soo qaado 2 ku dhufo waa 4 i-dan i ku dhufo waa i squared i squared na waxay u dhigantaa minus 1 ay u dhigantaa booski marka i squared ka waxa lagu bedelanaa minus 1 ku bedelo caadi isku dhufo waxaan dhaynaa marka equal 12 kan soo qaado minus kan iyo minus kan hadday isku dhacaan waa plus 4 waaye 4 hore keen wixii real isxiji wixii imaginary isxiji saas la rabaa in la sameeyo minus 6i plus 8i sida u soo qaado labadan hore waa real labada dambana waa imaginary then waxaan dhaynaa equal 12 iyo 4 like signs waaye haddii la isku daro waxaa ka soo baxayso 16 labadan dambe imaginary-ga hal iota ka soo qaado ayaga unlike signs waaye kala jar 8 kan haddii 6 laga jaro waxaa ka soo baxayso 2 2da waxaa la siinaa the greater number signka uu wato maadaama uu plus yahay pluska c then the answer wuxuu noqonaa 16 plus 2i meesha ay ku qoran tahay ayaa goobe la gelinaa question 5 waxaan lahayd in national form 4 mathematics examination candidates are asked to solve 6 out of 10 probability questions candidateska ardayda laga wadaa ayaa waxaa la weydiiyay in ay xaliyaan ama ay solve gareeyaan 6 kamid ah 10 su'aal kasta oo probability questions ah oo su'aalo ihtimaal ah how many possible combinations of 6 questions could you choose possible combination ka at 6 question at ka dooran lahayd those 10 questions kaasi maxay noqon lahayn sheeg waa hadalku si kooban haddaan kugu sheego waa arday kalaaska form 4 ka national examination in form 4 u fadhiso waaye ardayda waxaa la weydiiyay 10 questions kaasi waxaa la rabaa inay ka doortaan 6 out of those 10 questions inay ka doortaan la rabaa marka 6 questions kaasi ay dooranayaan muxuu noqonaa marka combination ka those 6 questions ka muxuu noqonaa sheeg su'aasha lagu sheego waxa aad raadinayso waa combination waa qaacidada combination inaan ku shaqeyso ayaa laga rabaa chapterkii probability-da ayaa laga hadlayaa oo chapter 3 ah marka aan ka hadlayno anaga combination waxa lagu heli jiray qaacidadan combinationka waxa loo soo gaabin jiray C capital hore waxa lagu qori jiray N hoosna waxa lagu qori jiray R maxaa lagu heli jiray marka kor waxa lagu qori jiray N victorial hoosna waxay ahayd N minus R victorial oo haddana ay ku sii dhacsan tahay R victorial labada number ee lagu siiyay waa 10 and 6 waaye labada number ka weyn ee 10 ka ah waxa u qaadanaynaa N number ka yarna waxa u qaadanaynaa R ayaa u qaadanaynaa waa total numbers iyo choosing those 10 questions kaasi waa total numberkii R tana waxa waaye inta laga doortay waa 10 questions oo out of 6 questions oo laga doortay then qaacidada dhow waa ku badbadelinaysa inta booskeeda waxa u qaadanaysaa 10 R ta waxa u qaadanaysaa 6 inta waxa u qaadanaya mar kale 10 victorial halkan waxa la dhihi doonaa 10 minus 6 wixii ka soo baxo victorial haddana waxa la dhahaa R victorial R waxa waaye 6 victorial equal ayaa la dhihi doonaa kor waxaa la haystaa 10 victorial sida u soo qaado 10 ka haddii 6 laga jaro waa 4 victorial meesha hore waxaa kugu taal haddana 6 victorial equal ayaa dhahaysa haddaa intaa calculator haysato hal mar waa gelin kartaa haddaadan calculator haysanna maxaa samayn kartaa 10 victorial furfur ilaa aad ka gaarayso 6 victorial 10 times 9 times 8 times 7
times 6 factorial 10 ilaa 6 factorial aa waday 4 factorial haddaa rabtaa inaad xitaa furfur 4 factorial waxay leeg tahay 4 afar ku dhufo nambarada ayada ka yaroo dhan hadalka saas u aha 4 times 3 times 2 times 1 times haddana 6 factorial aad u soo qaado equal 6 factorial is 6 factorial ayaa isku baxaya maxaa kaloo isku baxaya 2 u qayb 1 2 u qayb waa 4 3 u qayb 1 3 u qayb waa 3 2 u qayb waa 1 2 u qayb waa 2 15 ku dhufo 2 wixii kaaga soo baxo 7 ku sii dhufo hoos waxa ku haysataa kaliya 1 hooseeya ma la qoraayo korta isku dhufato waxa kaaga soo baxayso 210 ayaa kaaga soo baxayso labadan isku bixisay intaan kore iyo intaan hoose hadii la kala turo 210 waxa gobol gelina marka 210 meesha ku qoranta ayaa gobol gelina su'aasha kale ee ku sii xigto hadaan fiirino question 6 grade 12 mathematics contains 7 chapters with their lessons 6 7 8 4 5 7 and 3 hence the average of the lessons is muxuu noqonaa sheeg buugga xisaabta wuxuu ka kooban yahay 7 chapter ayuu ka kooban yahay 7 chapters those 7 chapters waxa lagu dhahay chapter kasta intaas oo cashar uu ka kooban yahay average ka casharadan muxuu noqonaa sheeg waa su'aasha 7 chapter waaye chapter kastana intaas oo lesson uu leeyahay average of those lessons ka muxuu noqonaa sheeg average waa taqana average marka aad raadinayso waxa ku soo baratay statisticada all the numbers ayaa isku daraysaa waxa uu qaybinaysaa by the number of them ayaa u qaybinaysaa kaliya waa su'aasha ugu fudud ee hadda page-kan ku qoran all the numbers ah haysato waa plus u dhixaysi 6 plus 7 plus 8 plus 4 plus 5 plus 7 plus 3 how many numbers are here 1 2 3 4 5 6 7 divide by 7 then equal all these numbers hadii la isku daro waxa ka soo baxayso 40 over waxa loo qaybinaa by 7 chapters 40 hadii loo qaybiyo 7 waxa nooga soo baxayso 5.7128 question 7 keena hadda isku dayna su'aashu waxay tahay if the marks of 4 students are 25 54 54 and 67 the range is su'aashaas laga rabaa inaad soo saarto waa 4 students waaye markiga ardayga hore the first student waa 25 kan kale waa 54 and another one is 54 waaye the last student ama candidate ka asna waxa waa 67 waaye markiskiisa waxa laga rabaa markiyadan ah haysato these 4 marks kan range-gooda inay raadiso data horta qaabkan markay u qoran tahay oo kali ay tahay single ay tahay ungrouped data data marka ay tahay ungrouped data ay tahay range-geeda waa soo heli kartaa range-ga muxuu ahaa data marka hore waa inaad si order ah u qortaa order marka u qorto then waxa kala jaraysaa the highest value iyo the lowest value sharciga saasoo ah anaga si order hadda u qorno ayadaaba hadda si order u qoranba waa kana 25 54 iyo 167 order ayadaa u qoran then answerkan anagu wuxuu noqonaa aan dhahaynaa maadaama datadu ay tahay ungrouped data ay tahay the highest value oo ah the last number oo ah 67 ayaa laga jaraa the lowest value oo ah 25 ayaa laga jaraa labadan hadii la kala jaro waxa inoo soo baxayso 42 answerka waxaad goob gelin doontaan d ayay 42 na ku qoran tahay su'aasha kale ku xigta fiirisaan oo sideedaad if a coin is tossed then the sample space is hadii shilin la tuuro probability-da dib loogu noqday muxuu noqonayaa sample space-ka muxuu noqonayaa sample space-ka anaga waxaan ku soo sheegnay muunada shay marka uu dhacayo event marka uu dhacayo inta way ee suurtagalka ah ee eventigaas marka uu dhacayo uu ku imaan karo eventigaas ama uu ku dhici karo taas waxa lagu magacaabi jiray sample space la dhihi jiray hadda coin la soo qaatay coin hadii la tuuro number of sample space kiisa wuxuu noqonaa kaliya coin wuxuu iska leeyahay laba side waxa waaye head side ka kalena wuxuu noqonayaa tail ayuu noqonaa maadaama head iyo tail ay kaliyiin then waxaan dhahaynaa sample space ka coin kan laga hadlaayo wuxuu noqonaa head iyo tail ama head midka doonta dheh goob waxa la gelinayaa marka c oo ay ku qoran tahay head iyo tail xarashka iyo madaxa uu ku qoran yahay su'aasha kale ee sagaalada hadda fiirsaan the limit of function of x is x squared plus 4x minus 1 at x is equal to 1 maxay la eg tahay sheeg qaybta calculus-ta function of x kaaga waa intaan hadii x ka uu la eg yahay 1 uu la eg yahay function kaas muxuu noqon lahaa hadii x ka 1 loo qaato waad ku badbedelinaysaa kaliya x ka booskiisa waxaad u qaadanaysaa 1 ka square garay plus 4 soo qaado x 1 u qaado minus 1 ka soo qaado 1 square garay 1 waaye
plus kan soo qaado 4 times 1 waa 4 minus 1 soo qaado plus 1 kan minus 1 kan move meesha waxa ku soo haraysa 4 answerka waxa goobile gelinaa marka afarta meesha ay ku qoran tahay ayaa goobile gelinaa su'aasha sagaalaad waana B ayaa goobile gelinaa su'aasha kale ee ku xigta question 10 way iska fududahay waa limit 7 as x approaches to 2 maxay la egtahay hore waxa usoo dhigatay calculusta qaybta limitska marka laga hadlayo waxa la soo sheegay the limit of a constant is that constant constantiga limit wuxuu noqonaa isla constantigaas ayuu noqonaa meesha hadda anaga maadaama aan ku haysano waa question 10 wuxuu na siiyay limit 7 as x approaches to 2 answerka waxa ku noqonaya marka isla constantiga inta yaalo wuxuu yahay ayaa soo qoranaysa isla 7 ku noqonayo 2 ku noqonayso laakiin meeshan hadii ay noqon lahayd variable x oo kale x kaas waxa loo qaadan lahaa 2 waa loo qaadan lahaa inputka meesha uu ku siisiqayo ayaa lagu bedelan lahaa kadibna answerka waxa noqon lahaa 2 daas aan noqon lahayd laakiin hadda waa constantiga ayaa answerka noo noqonayo waa question 10 question 11 hada isku dayin ayadana aan fiirino the derivative of function of x is 20 maxay la eg tahay waa derivative ka constanti muxuu la mid noqon hadii lagu dhaho derivative constanti derivative kiisa wuxuu la mid noqonayaa 0 ayuu la mid noqonayaa constantiga hadii derivative lagu sameeyo wuxuu la mid yahay 0 ayuu la eg yahay sharciga hore ayaa usoo dhigatay waxa haysataa f of x is equal to 20 waayo su'aasha adiga lagu weydiiyay answerka muxuu noqonaa hadii la draft gareeyo derivative ka wuxuu noqon lahaa waa su'aasha 11aad kan wuxuu noqon lahaa f prime x equal 20 hadii la draft gareeyo waxa ka soo baxayso 0 ayaa ka soo baxayso answerka waxa gobol gelinaa marka 0da waa qaybta c ay ku qoran tahay waa su'aasheena 12aad hada fiirisan the differentiation of g of x ayaa waxay la eg tahay x plus 1 over x minus 4 hadii lagu sameeyo differentiation answerka muxuu noqonayaa sheeg anagu waxaan isticmaalaynaa ma iska qiyaasayno toosa u shaqeynayna wixii noo soo baxo waxaan goobi gelinayna waa laba function oo la isku qaybinayo oo la rabo in lagu sameeyo differentiation in lagu sameeyo la rabo laba function oo isku qaybsan marka aragtay in differentiation aad ku samayso numeratorka iyo denominatorka oo isku dhacsan waxaad soo qoranaysaa laba marna hore ku qor marna gadaal ku qor numeratorka waa x plus 1 denominatorka waa x minus 4 marka la hadana x plus 1 oo ku dhacsan x minus 4 ku dhacsan waxaan u dhaxaysiinaysaa calaamada isku qaybinta walaasheed oo ah minus hoos waxa ku dhigaysaa denominatorka oo la isku hirgeliyay denominatorkaaga waa x minus 4 ta isku hirgelay equal ayaan soo qaadanaynaa qaybtan kore marka numeratorka iyo denominatorka laba mar soo dhigto markan hore xig marna kan dambe xig kan marka xigayso constant hadii la xigo constant hadii derivative lagu sameeyo 0 waa qoran x hadii derivative lagu sameeyo 1 waayo 1 hadii x minus 4 uu ku dhaco waa x minus 4 leeyahay minus kan soo qaado qaybtaas dambe u takadana 4 hadii derivative lagu sameeyo waa 0 x hadii derivative lagu sameeyo waa 1 ka wuxuu ku dhacaa qaybtan ayuu ku dhacaa waxay noqon leedahay ayadana x plus 1 hoosna waxa lagu haystaa x minus 4 oo squared ayaa lagu haystaa wal ayaan dhahaynaa qaybta hoose marka la sideeda x minus 4 squared bracket yada ka saar kan hadii bracketka laga saaro sidiisu ku soo baxa x minus 4 qaybta dambe laakiin waxa ku dhacaya minus kana ku dhacaya minus kan hadii x lagu dhufto waxay noqotaa minus x minus kan hadii plus lagu dhufto inta waxay noqotaa minus 1 ayay noqotaa haddaan sii furfurno equal ayaan dhahaynaa hoos sideeda u soo qaadanaynaa x minus 4 oo squared qaybahan kore plus x kan iyo minus x kan move way isku baxayaan minus 4 iyo minus 1 hadii la isku darno waxa ka soo baxaysa minus 5 answerka waxa gobol gelinaa minus 5 over x minus 4 whole squared waa question 13 wali waxaan ku jirnaa derivative key function kan meesha inoogu qoran oo trigonometric function kan ah hadii la derive gareeyo answerka muxuu noqonayaa sheeg waa su'aasha waa sinka iyo coska iyo sec inaad xifdiso ay ku xiran tahay su'aasheena waa y is equal to 2 sin x 3 sec x y marka aragto inaad furfurto dhow waxaad dhihi doontaa y prime qaybtan waxaad dhahaysaa 2 sin x derivative ka hadana 3 sec
x calaamada derivative-ka saar y prime waxay la mid noqonaysaa 2dan coefficient waa sida u soo qaado sin haddii derivative lagu sameeyo waxay dhashaa cos ay dhashaa cos x soo qaado minus 3dan coefficient-ga soo qaado sec haddii derivative lagu sameeyo waxay dhashaa sec iyo tan ayaa ay dhashaa maadaama sec ay x wadatay secta angle ahaan x u raacsi tankana x u raacsi ansarka waxaa goobal gelinaa marka 2 cos x minus 3 sec x tan x ayaa goobal gelinaya su'aasheena 14aad waxay tahay the equation of the tangent line of the graph of f of x is equal to x squared minus 4x plus 6 at x is equal to 1 waxa su'aashan la iska waxay tahay equation-ka tangent line-ka leenka tangentiga marka aan ka hadlayno leenka tangentiga loo yaqaan ee taabtaha loo yaqaano calculus-ta leenkaas tangentiga ah muxuu equation-ta samaysay equation-tiisu maxay ahayd waa su'aasha anagana la weydiiyay waxaana nala siiyay x-ta qiimaha ay la eg tahay iyo function-ka ayaana la siiyay waxaa la rabaa marka equation of the tangentiga in la soo saarto si ay equation of the tangentiga u soo saarto anaga wadooyin badan ma marayno waxaan isticmaalaynaa isla egtaan ayaan equation of the tangentiga aan ku heli doonaa taasoo ah y minus y1 is equal to mx minus x1 qaacidadan isticmaalaynaa haddaan qaacidadan isticmaalayno maxaa loo baahan yahay waa inaad point haysataa labo waa inaad slope haysataa pointiga aad haysato labada oo red bear uu iska leeyahay midna waxa u qaadanaysaa x waliba x1 aad leedahay midna waxa u qaadanaysaa tan dambe y oo y1 ayaa u kala qaadanaysaa barta aad haysato labadeeda oo red bear x1 iyo y1 ayaa u kala qaadanay waxaad u baahan tahay hadana si aad equation of the line u soo hesho slope ina haysato ayadana waa muhiim ay ku tahay adiga hadda barta oo red bearada ee x-ta iyo y-da ka soo saaran lahayd x-ka kaliya bas ayaa haysataa x-kana haysataa waxa ka maqan y1 ayaa ka maqan y-da ayaa marka hore soo saaranay y-da waxaad ku soo saaranaysaa isla egtaan lagu siiyay ayaa x-ta waxaad ku bedelanaysaa 1 qiimaha y-da halkaas ayaa ka soo heli doontaa barta marka asaa u samayso function-kan lagu siiyay ayaa waxa ku sameeynaysaa derivative marka aad ku samayso x-ka hadana waxa ku bedelan doontaa this value ayaa ku bedelan doontaa waxa kaaga soo baxo ayaa ayadana la dhihi doonaa slope-ka halka ayaa ka heli doontaa ama slope loo qaadan doona kadibna isla egtaan ayaa toos ugu bedelan doontaa slope waxa ku soo baxay iyo bounty waxa ku soo baxay marka hore anaga bounty-ga maadaama hadda x ahayno y-diis ayaan raadinaynaa y-da saa u soo saarno waxaan dhahaynaa f of x-ka booskiisa 1ka hadda lagu sii u qaado x-kan 1kan u qaado square garay minus 4 x-ka 1 u qaado plus 6 equal 1 square garay waa 1 minus 4 times 1 waa 4 plus 6 soo qaado labadan haddii la kala jaro waa minus 3 plus 6 waxaa ka soo baxayso 3 ayaa nooga soo baxayso hadda waxaan soo helnay y the value of y ayaa la soo helay then waxaan leenahay the point barta loo baahnaa is waxay la eg tahay x-ka waxaad haysatay 1 y-da hadda wixii kuu soo baxay u qaadanaysaa 3 1,3 ayaa dhahaysaa barta waad heshay haddana waxaad soo heli doontaa slope-ka si aad slope-ka usoo hesho function-ka lagu siiyey derivative ku sameey x-ka ku bedel haddana function-ka anagana la siiyey waa function-kan waxaan dhahaynaa f prime x equal function-ka marka xig x squared haddii la xigo wuxuu noqonaa 2x minus kan soo qaado x haddii la xigo 1 lewa 1 haddii 4 lagu dhufto waa 4 constant haddii la xigo 0 ha noo qorin marka halkan marka aan joogno x-kan waxaa lagu bedelanaa haddana this value ayaa lagu bedelanaa waxaa la marka f prime x-ka u qaado 1 equal dheh 2 x-ka u qaado 1 minus 4 dheh equal 2 times 1 waa 2 minus 4 haddii lagu bedesho waxaa kaaga soo baxayso minus 2 ayaa kaaga soo baxayso waad soo heshay haddana slope maxaa yeelay chapterka bilowgiisa marka aan sharxaynay derivative-ka waxaan dhahnay derivative-ka waa slope oo la xigay kaliya ayaan kusoo sheegnay maadaama derivative-ka slope oo la xiga waaya aan dhahnay halkan waxaa u qaadan karnaa meesha f prime
x ta waxaa la dhihi karaa oo loo qaadan karaa dy over dx waxaa loo qaadan karaa sidoo kale m ayaa loo qaadan karaa waxyaabahaas dhan waxaa kugu soo sheegay chapterka derivative marka aan sheegaynay marka that's why hadda anaga m teena waxaa laga wadaa minus f prime oo x loo qaadan waxaa laga wadaa slope keen wuxuu leeyahay minus 2 isla eg soo qaado hadda ku bedbedela marka waxaa leedahay isla egtu waxay tahay y minus y1 tan waxaa loo qaadanaa barta hadda adiga aad soo saaratay waxay ka kooban tahay bar kasta x y ka kooban tahay x waxaa u qaadanaysaa x1 y dan waxaa u qaadanaysaa y1 y1 ta anaga waxaa u qaadanaynaa marka 3 ayaa u qaadanaynaa equal m ta slope y hadda ayaan soo saaranay waa minus 2 x ka waa x ta caadiga ah ee la raadinayo x1 waad haysataa x1 kaaga waxaad haysataa 1 ka soo qaado qaybtan dhan hore keen si minuskan looga cararo waxaad leeysaa minus 2 x minus 1 equal y minus 3 halkaas bracketkan coefficientiga ku fur minus 2 dan x hadii lagu garaaco waxay noo noqotaa minus 2x minuska minus ku garaac plus y 2 times 1 2 equal y minus 3 sideeda noogu soo qaad soo wareeji marka minus 2x dhaaf plus y dan soo wareeji minus y plus 2 ayaa meesha loogu yimid minus 3 dan soo wareeji waa plus 3 equal 0 ayaan dhahaynaa waxaan dhahaynaa mar kale minus 2x noo soo qaad minus y labadan haddii la isku daro waa plus 5 equal 0 ayaan dhahaynaa anaga waxaan rabnaa inaan y soo saarno y dan reeb minus y da noo reeb waxaan dhahaynaa haddaan minus y da aan rabno minus y reeb minus 2x kan wareeji wuxuu ku wareegaa plus 2x ayuu ku wareegaa plus 5 kan wareeji wuxuu ku wareegaa minus 5 ayuu ku wareegaa adiga y caadi haddaa rabto coefficientigeeda minus uu noqday mamnuuc waaye minus kan saa u baabi'iso meel walba divide by minus ama minus ku garaac minus kan haddii minus lagu garaaco plus uu noqonaa y equal plus kan haddii minus lagu garaaco minus uu noqonaa 2x minus kan haddii minus lagu garaaco wuxuu noqonaa plus 5 ayuu noqonaa this is the required equation y isla egta marka equation of the tangent line ka ila sheegayo waa midaan waa su'aasheena 15aad waxaa la iska rabaa integrandiga ama integrationka dami variable kan dx tan markaan sharxinay dami variable ka chapterkaasi hore waxa u soo sheegnay dami variable hadii integration ku sameeyo lagu dhaho waxaad soo qortaa kaliya dami variable-ka uu wato maadaama integration kana uu yahay indefinite integral uu yahay indefinite integral iska dhamaantoodba waxaa la raacin jiray constantigana caadi isaga raacsiiyey waa su'aasha ugu fudud ee haddana beeshkan noogu qoran aad arkaysaan dx haddaan integration ku samayno waxaan soo qoraynaa kaliya dami variable-kan variable-ka uu wato oo x ka soo qaado plus maadaama indefinite integral uu yahay waxaa la raacinaa c-diisa ansarka oo dhanba wuxuu noqonaa kaliya x plus c su'aasha kale ee 16 haddaad fiirsaan weli integration ayaa laga hadlayaa su'aal kale la soo qaatay 1 over x dx haddii ayadan integration lagu sameeyo maxay noqonaysaa ayadana waa special case waaye tan haddaad fiirisaan waad soo dhigateen 1 over x dx dami variable-ka haddii waxa ka horeeya ay noqdaan 1 over x ay noqdaan markii integration lagu sameynayo maxay noqon jirtay ayadana special case kan wuxuu ahaa marka aad furfurayso equal ayaa la dhihi jiray 1 over x marka integration lagu sameynayo 1 over x waxay dhashaa ln ayay dhashaa oo x ah ayay dhashaa ln ayaa la soo qaataa 1 over x kan waa ln variable-ka uu ku socdo maadaama x uu yahay x ka soo qaado kadibna waxaa la dhihi jiray plus c ayaa la soo qaadan jiray sidan waxay ku imaanaysaa constantiga ay u taagan tahay waxayna ka imaanaysaa indefinite integral waa marka waxaana la dhahaa sida aan hore u soo sheegnay maadaama ln meesha hadda x oo hore uu linta x ay la socoto x ta waxaa la gelin karaa absolute value sababta loo gelinayo absolute value-gana waxaan ku soo sheegnay markaasi waxaa laga cararaa minuska maxaa yeelay tira minus oo hadii absolute value la geliyo waxay ku soo baxdaa plus ay ku soo baxdaa taas ayadana saasaan ku soo sheegnay waa su'aasha 16aad waxaa goobe la gelinaa ayadana ln x plus c ln x tala socda hadii la geliyo absolute value-na ha la yaabin waxaa laga cararaa minuska ayaa laga cararaa saasna waa loo qori karaa sax waa su'aasha ayadana haddaan wax yar dib ku sii xasuusiyo hadii lagu dhaho the indefinite integral of a 7 of x dx ada qaybtan hadda la soo qaatay hadhow in la soo qaato waa suurtagal inaan la soo qaadana waa suurtagal
qaybtan kale ayaa la soo qaadan karaa hadii loo baahdo oo lagu bedbedeli karaa adigoon iska akhri 7 of x dx hadii la dhaho ayadana furfura isla page-kaas ay ku qorneed marka hore 7 of x kan ayaa qaabkan oo kale loo soo qoraa waxa la dhihi jiray equal ayaa la soo qaadanaa calaamada indefinite integral ka soo qaad 7 waxa waaye prime number maxay ka kala timid waxay ka timid 7 times 1 ay ka timid 7 kii waa kala bixisay 7 iyo 1 u kala bixisay x kana soo qaadatay 1 ka meesha ku qoran ayaa hooseeya aga dhigtay daami variable kaaga oo dx ka sidiisa u soo qaadatay then coefficient-gan banaanka iskaga soo saar banaanku imaana banaanka markuu yimaado 1 over x dx hadda qaybtan ayay shabahdaa 1 over x dx waxay shabahdaa ln x plus c ayay shabahdaa caadi u soo qaada marka ln x plus c qaybtana absolute value gili si aad minuska aga cararto ayadana waa xasuusin midaasi answerka marka waxa gobol gelinaya midaan ahayd tan hadda anaga isaga darsanay su'aasha kale inoogu xigta ee 17 hadaad fiirsaan wuxuu dhahay raadi second derivative ka hadana derivative ka dib loogu noqday first second third derivative inta waa soo baratay waxa laga rabaa marka inaad raadiso the second derivative ka function kan soo socdo 3x plus 2 oo power 10 ayaa haysataa markaan waxaa la isticmaalaa xeerkii ama rule-kii loo yaqaanay chain rule ayaa la isticmaalaa expression noocan oo kale marka rabto inaad derivative ku samayso chain rule-ka waay chain rule-ka marka lagu sameynayo sharciga muxuu ahaa sharcigu wuxuu ahaa mar power-ka ayaa si gaar loo drive gareynaa marna expression-ka gudaha ku qoran ayaa si gaar ah loo drive gareynaa labadii step oo la soo sheegay anagana labadaas un baan baraynaa then waxaan dhahaynaa equal ayaan soo qaadanaynaa horta qaybtan marka arabno inaan drive gareyno f2 waxay noqonaysaa f prime x then equal ayaan dhahaynaa qaybtan haddaan rabno chain rule inaan aaga shaqeyno marka hore power-ka drive garey power-kan coefficient-iga ku garaac wuxuu noqonaa 10 ayuu noqonaa open bracket expression-ka sidiis usoo qaado waxaa waaye 3x plus 2y power-ka maadaama power 10 uu yahay horena aa ku garaacday -1 dheh wuxuu noqonaa power 9 ayuu noqonay waxaana ku dhufataa haddana expression-ka gudaha oo la xigay ama la drive gareeyay constant haddii la xig waa 0 variable haddii la xig waa 1 haddii 3 lagu dhufto waa 3 3da intay imaan lahayd 3dan marka waxay ku dhici lahayd 10 kan ayay ku dhici lahayd marka maxay noqon lahayd 3dan hadday 10 ku dhacdo waxay noqon lahayd 30 soo qaada marka 3x plus 2 power 9 this is the first derivative adiga su'aasha lagu weydiiyay first derivative ma ahan second derivative laga rabaa maadaama second derivative laga rabo qaybtan ayaad mar kale second derivative keeda aad raadin doontaa second derivative muxuu noqonaa f double prime x equal ayaan dhahaynaa qaybtan la drive gareynaa waa 30 3x plus 2 power 9 ayaa haysataa waxaan dhahaynaa equal power kan coefficient-iga ku garaac 9 kan haddii 30 lagu garaaco waa 270 ayaa soo baxayso soo qaada expression-ka waa 3x plus 2 power-ka -1 dheh 9 waayo 1 haddii laga jiro 8 ayaa u noqonaa expression-ka bracket-ka ku jiro drive gareeyo banaanka dhig constant haddii la drive gareeyo 0 x haddii la drive gareeyo 1 1 3 ku dhufo 3 3da halkaas imaanay then waxaan dhahaynaa equal 3da ayaa hadda waxaa lagu soo garaacaa 270 plus 2 waa 810 waxay noo noqonaysaa 3x plus 2 power 8 second derivative marka intaan noo noqday su'aasheena 18aad probability of getting 5 from throwing a dice is probability-da lagu heli karo 5 waa maxay haddii dice ama ladhu haddii la die-ga ama dice-ka wuxuu iska leeyahay 6 faces waana sample space-kiisa probability of getting only 5 waxay noqonaysaa 1 maxay yeelay 6 faces-ka waxaa ku jira kaliya 1 5 ayaa ku jirta maadaama 1 5 kaliya ay ku jirto waxaan leenahay haddaan su'aashaas aan rabno inaan furfurno probability of getting 5 waxay la eg tahay sample space-ka meeqa face uu iska leeyahay dice-ka wuxuu iska leeyahay 6 faces of getting only 5 waxa waa event of getting 5 waxa waaye 1 over 6 ayaan dhahaynaa waa sample space-kii kana waxa waaye event-igu waaye 1 over 6 meesha ay ku qoran tahay ayaa gobol gelinaa oo c hadda ay noogu qoran tahay question 19 haddaa fiirisaan the set of all possible outcomes of an experiment is called
dhammaan possible outcome-yada waxyaabaha outcome-ka ah results-ka soo bixi karo marka experiment la sameeyo maxaa lagu experiment la sameeyo result-da ama outcome-ka soo baxo waxaa loo yaqaanaa sample space. su'aasha kale ee 20aad hadaa fiirisaan how many ways can we arrange 3 books? 3 book imase way ayaa loo arrange gareyn karaa oo kala ah math, physics and chemistry. meeqa way loo arrange gareyn karaa? waa su'aal iska fudud oo probability ah maadaama 3 things ay yihiin waxaad dhihi kartaa 3 victorial. 3 victorial haddii la furfuro maxay noqonaysaa 3 ku dhufo nambarada ayaa ka yaro dhanba waa 3 ku dhufo times 2 ku dhufo times 1 ku dhufo 3 times 2 6 6 times 1 waxa waa 6 waay. waxaa loo arrange gareyn karaa 6 ways aa loo arrange gareyn karaa. laakiin haddii aan rabno inaan muujino maxay noqon lahayd waxaa la dhihi lahaa mar math, physics, chemistry. markaa rabto in 6 waygan aad samayso oo kale si practic ahaan waxaa leedahay mathka 2 mar horay keen, bdan 2 mar horay keen, cdan 2 mar horay keen. waa u kala bedelay marka mtan mar waxaa raacay bc haddana labadan u kala gedig soo kala hormari cda horay keen bda gadaal gey waa kasa. bdan 2 mar waaye bda mar waxaa raacaya labadan geesaha m iyo c yaa raacaya mar yaa raacaya cda horay keen mta gadaal gey. cda yaa raacaya cda waxaa raacaya labadan mar waxaa raacaya m iyo b math iyo physics mar waxaa raacaya physics iyo math ayaa raacaya. the 6 ways waa kana the first way, the second, the third, the fourth, the 50, the 60. 6 ways la rabo waa kasa. qaybtan waa qaybtii hore ee goobgeliska halkaas ku joojinayna qaybta kale ee xigta ee soo socota ee ayadana calculation ka ah bal ila soco mahadsanidin.